waa santahay Risala sida nolol soo xiriireysaan waxa la midtiin bulshada inteeda kale oo dal dibad nolol soo xiriiray xaaladda haweenka qof walba ma wareysanayo waxa mujtamaca Soomaaliyeed halkaan ugu jeedinayna aaba xaaladiisa in ay hadda degan tahay balse hadda daqiiqada waliba la sameeyo markii aan fiirinay shalay waxay ku dheerneyd maalinta xanuunada dhimirka isagoo saarbeeshka ayuu dhacay horena waxaan u ogeyn inuu qabo sabduurada hematoma xuufka dahaara mid ka mid ah maskaxda dhiiggaasi haddii uu dabto waxay cadaadis ku sameynaysaa maskaxdii tissuegaas organkaas ah inuu stroke ku dhaco in shaqadii jirka inteeda kale beelana way dhici kartaa wayna keenaysaa wuxuu u baahan yahay gargaar degdeg ah dalka dibadiisa ah inna wax looga soo qalo la furo xuubka lafka madaxa kadibna dhiigaas laga soo saaro marka hadda xaaladiisu waa sidee ma hele gurmad caafimaad halkoo hadda ku sugan yahay gurigooda joogaa oo la tacaalaysaan mise xarun caafimaad oo ku jira waa mahadsan tahay hadda xaaladiisa emergency oo isbitaal loola dhigo hadda ma taagno oxygenkii sanka ka qaadanaysa nabadgelyo ayuu ku qaadaynayaa waxaan sida karna waxaa waaye dhibaato mustaqbalka ah oo daqiiqadooyinkan soo aadan oo ku dhici karo mar walba hadda wuxuu qaataa daawooyinkiisa oo dhiigkarka ah ayuu qaataa kaalmada iyo wanaagsan ay qaadanayaan hadda keliya wuxuu fadhiyaa in gargaarkaas caafimaad loo fidiyo arrintaasina waxaan rajeynaynaa in aan hawshaasi dhammaan aan wada guntano aan ka wada qayb qaadano markaba markii ugu horeysa xanuunkan uu kusoo booday ma xanuun uu la noolaaya waa mahadsan tahay doctorka laba xanuun buu la noolyahay midna waa sokor midna waa dhiikar xanuun oo la noolaa maahan waa xanuun oo ka dhashay dhiikarkaasi iyo dhaawacyo soo gaaray madaxa oo dhibaatooyinkaasi ayaa keenay dhibaatadan in xuubkaasi uu dhiiga galo dhiig haddii uu saacad ka dambeyso sii siyaado xaaladiisa khatar bay sii galaysaa marka hadda meeqa saacadood ama meeqa maalmood oo xaaladaasi ku jira tan iyo September ayaa xaaladani dareemayay tan iyo September ayuu xaaladani dareemayay markii aan ku celinay CT scan-kii wuxuu sheegay in dhiiggii meeshaasi dhiigbax cusub dhacay isbedel jiro markii la fiiriyo sidaas darteed wuxuu u baahan yahay gurmad caafimaad hadda raadiyaha Risala iyo TV-geedaba waxay ka qayb qaadanaysaa in xogta saxda ah iyo caafimaadkeeda qof walba kaalintiisa inuu ka ciyaaro qof walbana ma moogo allana ma moogo kaalintaani oo ummadiisa u geystay marka hadda doctorka maadaama xanuunkaas hadda dhiigkarka uu sidaas isku bedelay oo xaaladii ay halkaasi gaartay si caawinaad uu helo dadka ku dhageysanaya oo aad u yaqaana doctorka in muddo badan uu la soo tacaalay dad badan oo dhimirka ka xanuunsanaa dalkana wax badan oo usoo qabtay iyo dowladiba ehelkii doctorka maadaama aad tihiin maxaa ka codsanaysaan wallahi waxaan ugu filan baryada allena wax ka codsano haddii aan boodboodno xanuun iyo qof adduunkan oo dhan haddii la boodboodo doctorka caafimaad uma
keeni karo rabbi waxaan ka codsanaynaa in uu xanuunkaani hayo ka feedo qof waliba wax tari karo oo doctor xabeeb dowladda ahaato shacaba ahaado ducadiisana ugu soo kaalmeeyo waxaan rajaynaynaa qof walba ka qayb qaadan karto in dalku kal daaweyn dalku waa nin qaran ah oo ummaddan usoo shaqeeyey tan iyo burburkii dalka iyo ka horba dowlad waliba jirtayna waxay gudaysii jirtay darashadaas laga soo bilaabay allah unaxariistay maxamed siyaad bare madaxweynihii gacanta ilaa iyo cabdiqaasim ilaa iyo xukuumad waliba jirto gacantiisa xabeeb koonfurta iyo bartamaha keliya kama uusan soo shaqeynin xitaa buuhoodle xarun buu ka furay ilaa hadda shaqeynayso dadkii deegaanka u tababaray cabdudwaaq xarun kale ka furay ilaa hadda uu shaqeynayso dadkii deegaanka u tababaray oo weli dhakhtar xarunta ka tirsan weli kasii shaqeynayo baled xaabo xabeeb wuxuu u baahan yahay aabe in uu mujtamaciisa wuxuu gashtay maanta inuu gurto waxaan rajaynaynaa dhammaan inaysan aabaysan dayici doonin aabe alla inuusan dayici doonin oona soo kaman doono kama filaynaa hadii alla dayici doono bishaaro shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaaraynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega Dhamays Plus waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban kuwaas oo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel macaamil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo 7 ah sidoo kale macaamil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo bil ah macaamil ku dooro xirmooyinka adeega Dhamays Plus xawaare sare oo aan xaddi lahayn macaamil uga shubo xirmooyinka adeega Dhamays Plus adeega idahab code numberka xidig 104 gees adeega idahab reseller code numberka xidig 304 gees ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime-ka kuugu jira adigoo garaacaya code numberka xidig 204 gees macaamil xirmooyinka adeega Dhamays Plus nafsadaada ku soor